xayawaanka loo yaqaan waraabaha madhurwaaga ayaa waxa uu yahay xayawaan si weyn ugu nool geyiga Soomaalida waxaana si weyn loo yaqaan in xayawaankaasi uu cuno ariga looda iyo waliba geela dhacdo ka duwan ayaa hadaba idin haynaa dhacdadaasi oo ah xayawaankaasi waraabaha ayaa waxa uu cunay Cabdillaahi Axmed Maxamed Faarax oo wiil dhalinyaro isla markaasina jira 15 jir kuna nool degmada Woodwood waa kan Cabdillaahi oo ka warbixinaya qaabka uu cunay dhurwaagaasi waxaan saaka markii todobadii barkay ahayd baanu weerar ka tagnay oo cadayaal doonanay wadna meesha anoo jidka sii soconayaan gobol magaalada ku baxana xabas ka guranayo qabdii markaan dhaafnay buu showsan qadhoodu marka hore ku kacay dabeedna isagoo fogaan buu geed ku hurda ayaan u tagnay dabeedna dhagax baan marka hore waxaan sindilo dhagaxan iyo waxaan ku dhufno markaan uu yar ordayaan arnay inuu bahal iska soo taagan oo wax uu damacsan u yahay baan ku oromay marka hore maan u yar maro wixii soo bahalkiisa soo ordayman nabarna ma sidan cimaamad baan wato baan dib ku dhigay oo shiri markii de muxtanabarna ma wadna maqadirtan baa ka dhigneed marka ugu soo jeesto cimaamadan isaga dhigo cimaamada iyo gacanta iyo waxba isku qabto marka soo hal cabaar haysto niman kale soo gaareen marka ayga fujiyaan dasaas markaas u dhacdo arintaas Dr. Faarax Xasan Maxamed oo doctorka degmada Woodwood ayaa xilli markaasi dhaawaca TV-ga Somali News uu kurgalayay uga warbixiyay afalkaasi qaabka uu dhacay Dr. Faarax Xasan Maxamed ayaa geestiisa waxa uu baaq u diray waalidiinta dhashay caruurta oo uu sheegay inay la socdaan meesha ay aadayaan caruurtooda waxa weeyaan waa MCH-kii waxaana loo keenay saaka goor ilaa 9kii iyo barkii ahayd inaan uu qabqabtay sidaad muuqaalka uga jeedaan badruwa dhurwaagiina way qabqabtay oo weeraray dabadeedna waxa weeye dhaawiciisu gacanta ayaa titoban meel kale miyaa wax kaaga yaalin gacanta ayaa titoban sidaad muuqaalka uga jeedaan de waxa weeyaan markii xoolihii ka dhamaadeen dhulkii dadkii maalkii wuxuu noqday hor dadka cunaya oo dhurwaagu hadirto buuraha iyo meeshii leeyahay caruurta xaaba ka soo gura iyo meel walba waa khatar dul saaran weeyaan marka waxa weeyaan hadirto ninka kan faru waa jajaban yihiin sidaad u jeedaan saaka ayuu barqadii bay waxay doonteen cadaya doonteen adeer Soomaa cadaya u doonteen buurta dabeedna dhurwaa hurday u yimaadeen markay ay kiciyeen iyagii isku soo rogay de saas u dhacay baa la igu yiri dhaawacuna waa sahlan yahay hadeerto waxa loogu maqan yahay irbadii anti-raabiyada ahayd sidii kalena waanu u daweynay de intaas dhacday saaka ugu dambeyntii dhurwaagaasi ayaa waxa dadka degmadu ay ku guuleysteen in markaas la dilo Sakariye Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Woodwood